soo dhawaada waxaa idinka dabagelin rabaa update ka yar soo baxay oo application kala soo degsanayo linkigiisa already waa idin soo diraan filayaa waxaa sameeysiin waxaa galaysiin applicationkiina app store aan leeyahay play store ka then waxaa ku qortiin sms forwarding ku qora sms forwarding markaa ku qortiin waxaa idin soo bixi doona kan jaalaha ama si already linkigiisa oo idin soo diri soo dejiyo install markaa dhaadid install garay kadib linkiga ayaan idin soo diri doonaa linkiga markaan idin soo diro qof walba linkigiisa ama si waxaad sameyn kartiin everybody oo applicationkiisa linkiga ku golaayo tusaale hadda waxaan ku tijaabinoonaa linkigan waxaan ku tijaabinoonaa la yiraahdo ecash exchange.easytouch.so ayaa waxaan ka hormarinaynaa oo kaliya sms/sms.php aan leenahay okay aan leedahay marka saan ku soo bandhigo inta okay iska dheh okay leh saan ku soo bixi doona sida loo programmiyo waaye oo ku tusi doona tusaale ku tusi doona waxaan iska wareeji dande ugu horeen meeshaan balaaska furi doontaa allo waa leedahay allo si leedahay sms aad ku dhufanaysaa kan ugu horay ku soo baxaayo ma ahan meeshaan balaaskan aad ku dhufanaysaa url aad ka dooranaysaa kadibna linkiga ayaad ku baasti gareynaysaa halkan waxaad ku gelinaysaa sm oo capital ama small dib malahan sms.php inay saxan tahay in kale taas ku hubino okay sms.php markaan halkaa ku qortid halka ka hooseeyo waxaad gelinaysaa bosti aad leedahay bosti marka halka ka hooseeyo waxaad gelisaa sms oo capital ah sms oo capital halkaan sms oo caadi normal aad gelinaysaa small ah laakiin .php aad leedahay halka hoosena waxaad gelinaysaa sms oo capital ah then save ayaad leedahay allow ku leeyahay allow kale tasii dheh okay ayuu ku leeyahay okay aad leedahay xayeysiin yar ku soo saaraya kadib cancel iska leh then saas kugu imaanaya filterkan kadib waa sid galaysaa waa iska gedinaysaa marka halkan save aad haysaan okay kugu yimaado waa iska gedinaysaa halka ugu sareeso waxaad ku dhufanaysaa sandiga meesha ku qoran tahay top here waxaad ku qoraysaa enter details ku dhufo 192 ayaad ku qoraysaa sms 192 noogu imaan doonaa okay ayaad leedahay okay markaad dhahdid halka ka hooseeso waxaad gelinaysaa hadda halka ka hooseeso waxaad gelinaysaa sms yar ayaad qoraysaa sms kaas oo ah koodka ku soo dhacaayo koodkan kusoo dhici doono mar walba koodkan kusoo dhici doono koodkan ayaad qoreynaa koodkan yar ayaa in waxaa iska tiraynaa marka mar walba koodka kusoo dhacaya tiraynaa evc activation code is aad ku qoraysaa activation code is intaan hadda waa idin soo dirayaa si aad ugu qortaan then okay ayaad leedihiin intaa markaa ku qortiin ina 192 labadan meel agri dhaha waxaa laga yaabaa mar inaa idin soo dhihi doono halkan 192 waa ku qorteen iyo halkan iska tirtira laakiin hadda waxaa qasab ah inaad ku qortiin okay iska sii wareeji saan iskaga sii dhaaf halkan
ayadana sii wad then ugu dambeyntii save iska dheh. hadda waxaa ku diyaarsan message in lasoo aqriyo. mar walba ogaada markaad information koowaad aad buuxisid save inaad dhehaysid qasab waaye. kadib halkaan markuu ku keeno kadib markaad ku dhufatid ayaad xogta kale ku harsan buuxinaysaa. 192 ga qasab waaye. EVC activate code is inaad aad qasab waaye. ugu dambeyntii inaad save gareysid qasab waaye. waxaa kale qasab ayadana inaad marka halkaa ku qoraysiin ilaa idin madana ecash.ectech.so/sms.php URL la meeshan URL laha dad qaarkood waa ogaay inay emailka ay ku qori doonaan meeshan. emailka markay ku soo baxdo emailka marka email interphone markuu ku dhahayo ha ku qorin yaa meeshan kii ku qoro asii jeebkiisa waay aniga ku qor ma dhihin meeshaas iska ilaali. easytouch maxaa la jiray ecash exchange.ectech.so/sms.php markaa ku qorto halkaas ugu dambeyntii waa save gareynaysaa. wasallahu barak hawsha waa ku diyaarsan tahay. videoga halkaas kusoo gabagabaynaynaa. wixii soo kordhay insha allah update kaas oo idin soo siin doonaa. mahadsantiin.